ama uu ku sujuudayaa ama gacantiisa ama ulu intuu wax ku taabto allahu akbar inta yidhaahdo iyo halkan ka bilaabaya. halkan waa albaabkii kacbada, halkan waa maqaamu ibraahim saan u soo kormaraya. halkan markuu marayo tawaafku wuxuu iska ilaalinayaa meeshan inuu dhex galo. way bannaan tahay, waa la dhex mari karaa. ciriiriga markuu batana waxaa laga yaabaa inaad istiraahdo sida hadda ka hor ba aniga igu dhacday. halkanayba ka gaaban tahay inta ka gal. wax badanna sheekh ibraahim oo maaragtay manaabirta ka sheegaan maqli jiray meeshaan ninkii dhex gala tawaafkiisa loo xisaabin maayo, midkaas waa wareeg qaldamay. maxaa yeele kacbada korka oga maraysaa lagu yidhi dhex gal laguma dhihin. halkanna kacbaday ka tirsan tahay. qoraysh markay lacagta ku yaraatay yay ka goysay oo lacag xalaala la waayey. intan marka calaamadanna inuu kacbada ka tirsan tahay lagu ogaada loogu sameeyey 6 dhudhun ilaa 7 dhudhun oo dhinaca waqooyi ka xigta. halkan saasaad u soconaysaa markaad halkan marayso. ruknigan waxaa la yidhaha ruknul yamaani, inaad gacanta midigta ku taabataa sunnaa. halkaa laga bilaabo ilaa intan waxaad aqrinaysaa rabbanaa aatinaa fi dunya xasana wa fi laakhirati xasanatan waqinaa cadaaba naar aqrinaysaa. hal wareegaad dhammaysay. wareeggaa markaad dhammayso koowaad joogtaa allah. haddii dhunkashadii ay ku sahlanaato waad dhunkan, haddii kalena zaxmadaa jirtee korka unbaad ka tilmaami doontaa, waadna soconaysaa. marka 7 jeer aad samayso mar walbana 3 wareego ugu horrayso inaad ruclayso waa sunno tawaafka tawaafulquduumka. sidaasoo kale markaad dhammayso halkanaad maaragtay maqaamu ibraahimka waa kana, halkanaad 2 ragco ku tukanaysaa. kacbada iyo maqaamu ibraahimka hadda loola jeedaa meeshan. halkan 2 ragco sunno ku tukanaysaa. midda hore qul yaa ayyuhalkaafiruun aad aqrinaysaa faatixada ka damid, tan dambena qul wallaha. kabacdi halkaanaad imaanaysaa meelahan oo kale zamzamka ceelku ku aali jiray. haddana waxaa yaalla maaragtay meelo biyaha laga cabo oo talaajadaha, halkaasaad ka cabaysaa zamzamka. hadday kuu sahlanaato kacbadaad ku soo laabanaysaa, waad dhunkanaysaa. kabacdi markaasaad dhinacaasii safo u aadaysaa. bari weeye dhinacanna waa waqooyi, dhinacanna waa galbeed, dhinacanna waa koonfur. waxa cibaadaadka aad gudanayso dhankan bariga kaa xigaan. safo halkaanaad ka soo aadaysaa. buurtii safo waa taasaa. buurta safo markaad fuusho dhinaca kacbada u jeedsanaysaa. waxaad aqrinaysaa maaragtay ina safa walmarwata min shacaa'ir illah faman xaja albeyta aw ictamara falaa junaaxa caleyh an yatawafa bihima ilaa aakhiri alaaya. meeshuu ilaahay ka bilaabay yaan ka bilaabaynaa yidhi nebiga salawatullah sl aayaddan waa akhriyey. kabacdina gacmuhu kor u taagay asagoo aqrinaya laa ilaaha ila allahu waxdah laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamd yuxyi wamiita wa calaa kulli shay qadiir anjaza wacdah wanasara cabdah wa acaza junda wahazama alaxzaaba waxdah. waa uu duceeyey, sidaasuu 3 jeer ku sameeyey. markii aad ka soo hoobato halkan dadka lugaynayaa socda, waana one way weye. waad ka imaanaysaa inta markaad soo gaarto labadan calaamadood cagaaran dhexdooda inuu aad u ordaa ragga loo sunneeyaa. halkaa markaad timaaddo marwo koowaad joogtaa. markaad safo ku laabato 2 7 jeeraad saas ku samaynaysaa. mar walba calaamadan cagaaran aad soo gaardana waad ordaysaa. dhexdan waxaa loogu talagalay dadka curyaamada ah yaa maaragtay bushkuleeti ama cajalad iyo waxbaa lagula socodsiiyaa. marka 7aad markaad halkan marwo korkeeda aad timaaddo cumradii way kuu dhammaatay. saasaad ku dhammaysay cumrada. marka hore miiqaadka laga soo xirtaa. miiqaadka markii laga soo xirto tawaafkaasaa lagu bilaabaa 2 ragco. safii marwo waa dhammaatayba. inaad xiirato ama aad gaabsato bisaa ka haray. halkaa cumradii intay kaaga hartay. haddii marka maalinta 8aad la gaaro halkaasuu qofka aadayaa. maalinta 8aad hoteelkii uu maka deganaa yuu ka qubaysanayaa, ka soo diyaargaroobayaa. barqadeeda yuu soo xiranayaa xajka. markuu xirtana wuu soo dhaqaajinayaa, minuu imaanayaa. halkan teendhooyinkan waxaa weye mina laga wadaa. kulligoodna waxay ka xigaan dhinaca bariga ka xigaan. weliba bari oo waqooyi xigeena camal yay mino ka xigtaa kacbada. waa bari oo waqooyi xigeena. musdelifa ayadu waxay ku xigtaa bari oo toosa. carafana bari oo yar koonfur xigeen camala. saas hadda isu daba yaallaan hortiinna. halkan maalinta 8aad qofku markuu yimaado masjidkan masjidulkhayf masjid weyn weeye oo hadda kan tusaale un baa looga dan leeyahay. duhurka maalintaas iyo casarka iyo maqribka cishaay saas wax inuu ku tukado 5 salaadood ayaa la sunneeyaa. teendhooyinkaana la joogayaa. subaxa 9aad qoraxda markay soo baxdo yuu halkan ka soconaya. markuu socdo wuu soconaya halkan iyo dhulkan musdelifo. maanta waxba shuqul uma laha, waa la dhaafayaa. carafaa maaragtay la tegaya. masjidkan masjid namira la yidhaahdaa. qaybtiisa hore carafo kama tirsana, wuxuu ka tirsan yahay maaragtay waadi curana. qaybtiisa dambena carafuu ka tirsan yahay. carafana sida boorkaa geeskaa kale ku yaalla calaamaday leedahayoo meeshay ku bilaabanayso meeshay ku dhammaanayso halkaasaad ka arki doontaan. maalinta 9aad duhur iyo casr halkanuu ku tukanayaa. musdelife iyo
carafo waxaa u dhexeeya waadiya u dhexeeya waadi curana la yidhaahdo kama tirsana musdelifana kama tirsana carafana kama tirsana mina iyo maka laftirkeedana waadi muxasir ayaa u dhexeeya mina musdelifaan ujeedaa mina iyo musdelifo dhexdooda ayadana waadi muxasir ayaa mara labadooda kama tirsana labadan musdelifo iyo minana buuraha hareeraha ka xiga videoga maaragtay adaawata aad wax ka daawateen yaa maalmaha uu tababarka socdo laydinku tababari doona insha allahu tacaala gobolka markuu dhaco halkaanuu qofka ka soo gadoomaya carafo buurta waxaa laga wadaa jabaluraxma laga wadaa qofka inuu agteeda istaago ama dhinaceeda ka soo jeesto asagoo qiblada u jeedsanaya xujayda qaarkooda qaladaadkay galaan waxaa ka mid a kacbadanay u jeedsanayaan markay ducaysanayaan waana khalad nebigu meeshuu istaagay salawatullahi wasalaamu caleyh buurta iyo maaragtay kacbada you soo wada qaabiliyay halkaana istaagay carafo dhanna waa mowqif in buurta la fuulo sunnada ka mid aha tababarkana waa ku qaadan doona asagoo maqli muuqaalana videoga ka arki doontaan markii uu meeshaa ku tukado maqrib ma tukanayo wuu dib dhigayaa musdelifuu imaanayaa mashcarulxaraamka booskiisii masjidkan hadda u calaamadaysan teendhooyinka iyo meelaha dadka bannaanka iska seexdaan masjidkan wuxuu ku tukanayaa ama bannaankan ama musdelifo meel ka mida un maqribkii cishiha uu isku soo raray halkaasuu seexanayaa salaadda subax markii waagu soo iftiimuu ka dhaqaajinayaa halkaa iyo minuu soo aadaya mino markii la soo aado qoraxda markay soo baxdo ka hor la tuuran maayo wixii waayeel ay dacafo axkaamtooda gaar waayo waa iska sii socon karaan kan waa dhagax yaraa waa la dhaafayaa maanta wax shuqula kuma laha maalinta koowaad waxaaba saaranba istilaabyo ah saaran oo askaraa waardiyeynayso wax dhagax tuura ma laha kan labaadna sidaasoo kale wey maalinka tobanaad halka kan keliya la tuurayaa kan qofka markuu tuuraya waagii hore dhinacan buuray ahaan jirtay nebiga salawatullahi waslamu aleyh waadiga calooshiisa intuu halkan soo istaago yaa maaragtay kacbadana ay ka qabanaysay gacantiisa bidixda minana ay midigta ka qabanaysay halkanuu nebiga ku tuuray salawatullahi waslamu caleyh gadaashaan meel wax laga tuuri kara maahayn laakiin hadda buurihii o dhan waa la tirtiray afarta jiha waa looga soo tuuri karaa inta waa looga tuuraa xagga waa looga tuuraa maalinkan 7 dhagaxuu halkan ku tuurayaa markuu dhagaxa tuurto yuu maaragtay xoolo hadduu watay uu qalayaa hadduusan maaragtay wadinna maaragtay tintiisa uu xiranaya kabacdi taxallulka koowaad uu joogaa dawaafkiiuu ku laabanayaa oo dawaaful ifaadaha ahaa halkaa dawaafyada lagu sameeyo dawaafka oo carafo istaagiddeeda ka dambeeya yaa ugu culus oo arkaanta xajka ka mid a 3 dawaafaa lagu sameeyaa dawaafulquduuma la yidhaahdaa qof kastoo soo galaa loo sunneeyaa ama xaaji ha ama muctamir ha ahaado waa sunno dawaafulcumra arkaanta cumraduu ka mid yahay la-aanteed maba ansaxayaba dawaafka saddexaad waa dawaafka dawaaful ifaadaha la yidhahdo arkaanta xajku ka mid yahay dawaaf afaraad oo dawaaful wadaac la yidhahdana wuu jiraa waajibaadka xajku ka mid yahay dumarka caadada qaba iyo kuwaasaa laga cafiyaa marka sanadkii hore kacbada mujasamkeedii iyo safo iyo marwo labadan bes miiskan keliyuu ahaa intanna maaragtay sanadkana maaragtay lagu soo ziyaadiyey wixii intaa ka dhiman galab waa goor gaabane tababarka iyo maaragtay wixii baraagtiga halkaasaa maaragtay lagu qaadanaya waxaan u mahad celinaynaa martida ay ugu horeeyaan maaragtay warbaahinta nala joogto tv-ga qaranka muqdisho cable through cable sidaasoo daarul qur'aan iyo dhammaan martida ka soo qaybgaysa rag iyo dumarba isugu jirta ragga hadda xajka u socdana allah u fuday allahna ka aqbalo dadka maaragtay kaloo maaragtay rajayn